Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkii laga saarayay dab-damiska oo la hadlay madaxweynaha Galmudug. Haddaan uga subscribe like noo saara. Haddaan ku sii socdo Axmed Kaahiye hadalkiisa waxaa ka mid sidatan salaadiinta nabadoonnada gabdhaha aqoon-yahanada inta lagu joogo qof walba magaciisa iyo darajadiisa iyo mudnaantiisa aan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, marka hore runtii aad baan uga xumaa culayska iyo dhibka meesha laga sheegay iyo sida wax u dhaceen. anigu safar shaqo ayaan wadanka ku imid, maantaan soo galay, waan maqlayay runtii tabashooyinka iyo dhiilada baryahan waa maqlayay. waan jeclaa in la xalliyo oo ay aniga dad kale oo iga faradhowdhooban ama hawshaas ay xalliyaan waa jeclaa. kolley alla ma qadarin. waxaan rabaa waalidka iyo dhammaan dadka halkaa fadhiye iyo inta maqanba inaad idhaahdo wixii aad culays dareemaysaan ama aad tabanaysaan wayna xanuujinayaan, wayna dhibayaan. dhulka dowladdaa leh, shacabkuna dowladdii leeyihin. wax dhibaato idinin wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyana meelu ka jirana ma ogin, mana ogolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha. arrintaas arrin hore loo galay soo socotay weeye. kolley hawshiina ma guulaysan, waxay soo socotaba meel guulad ma soo gaarin. sida la sheegay dad inay ku tagrifalaan oo ay si gaara ugu tagrifalaan dhulka dadkaas danyartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo ayagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay, ama siyaasada ku raadiyeen ama dano kale ku raadiyeenna mana dhacayso, saxna maaha. wixii waxaas ku hawlana damiirkoodu waxaa siiyana allah ka soo arusho. waxaan rabaa inaan idhaahdo arrinta laga hadlayo layidhi waa berri iyo macaaway hawsha meesha ka socota. ilaahay idinkii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa, waa la hadlaynaa, taliska booliiskana waa la hadlaynaa. bal berri horta hawshaas horta waa istaajinaynaa hadii la yidhaah. wax badan oo halkan ku munaasaba inaan idhaahdo aniga runtii iguma habboon. reer Galmudug baan oday u ahay, madax u ah meelay joogaanba. dadka reer Galmudug baana ka mid tihi. reer gaara madaxu ma ihi, laakiin reer Galmudug baa madax u ah. cabasho iga furso weysay oo in wax kolley aan alla qadarin inaysan isoo gaarin baana igu noqotay isoo gaartay. waxaan qari karoo dadaalahaan bixinayaa. waxaan idinka rabaa dad guddiya ood ku kalsoon tihiin oo amuurihiinna ka mas-uul ah inaad soo saartaan. dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska booliiska iyo cidday qusaysaba aan arrintooda ka wada hadalno. duulaan iyo dhib iyo shidana la idinma wado. inuu dhacaahina sax maaha. hadalkiinna waa ku faraxsanahay. dowladdana waa dowladdiinnii. carad iyo shidana uma wadaan, xumaanna ma qabtaan. dhibaato un haysata iyo dhib dhacay unbaad ka socotiin. waxa intaas dhaafsiisanna yaan la samaynoo ama lagu hadlin ama ficil iyo qowl mid ayaan loo samayn. mas-uul waxaa lagu yaqaanaa madaxweyne hadduu qofka yahay dadkiisa dhibkee tabanayaan markay u sheegaan qofkiinu mas-uulkaas inuu ka danqado. mas-uul saasaa lagu yaqaanaa. Axmed Kaahiye dadkii wuxuu ku yidhi Galmudug oo dhan baa madaxweyne u ahay, mas-uul baan iga saaran. waxaad tabanaysaa inaan
dhegeysto oo ka hadlo. Waxaan soo xasuustay madaxweynihii hore ee Baydhabo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan lacagtuu soo aruursan jiray, hotel buu degi jiray xamara, naaguu ku guursan jiray oo iska raaxaysan jiray. Farmaajo markuu yimid doorashay galeen, lafta gareen baa la doortay, nin dadkiisa ka naxaya, ciidamadii dhisay, baarlamaankii dhisay. Hadda waa arkayseen ciyaalkii u ciyaarayay kubadda dhalinyaradii markii xamar lagu dhaawacay, diyaarad buu dirsaday, wuu soo qaaday, Baydhabo keenay. Qofka muwaadinka ah ee madaxweynaha dadkiisa ka naxay saasaa lagu yaqaanaa. Wuu ku mahadsan yahay Axmed Kaahiye hadda suu dadkiisa ula dhaqmay. Dee doorashana wuu geli doonaa Galmudug. Waxay la tahay in asaga markaa la doorto ayaa fiican. Maxaa yeelay qof laaluush qaadanaya inay doortaan reer Galmudug looma qaato. Waxaan ku talin lahaa Axmed Kaahiye soo ceshta, isagaa dadkiina u hadli kara. barnaamijka halkaas uga baxaya. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.